xildhibaan golaha shacabka ka tirsan oo ku dhawaaqay in ciidamo hubeysan uu geeyey gobolka Shabeellaha Hoose isagana ay ka amar qaataan rag xukunsanayaal ah oo halkaasi lagu baadigoobayana uu tilmaamay inaysan joogin guud ahaanba gobolka Shabeellaha Hoose wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan ku eegi doonaa xiisadii dagaal ee u dhaxaysay beelihii halkaasi wada degayay oo soo cusboonaatay ninkii duqow ahaa oo isagana kamid ahaa ragga la baadigoobayay oo isaga oo dhaawac sheeganaya waliba ka soo hadlay barta gaarka ah ee TikTok ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeysay aan soo boqoto waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto saaxiibadaada la sii wadaagto muuqaalkan sidoo kalena qaybta hoose ee falada aragtidiina nagula wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray hadal heen xoogan oo la xiriirtay in howlgallo lagu dilay rag xukunsanayaal ah oo ay baadigoobayeen ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada toddobaad ee qaybta 12 Abriil ee xooga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ka howlgala deegaanada hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose rag saraakiil ah oo si weyn looga yaqaano deegaanada gobolkaasna ay hogaaminayaan waxaa la tilmaamay isbuucyadii la soo dhaafay in la toogtay ilaa iyo dhowr qof oo lagu tilmaamay inay yihiin rag xukunsanayaal ah laakiin qaybtood ay ka dhasheen muranno la xiriira dilkaasi loo geystay iyadoo odayaal dhaqan xitaa ay gaartay arrintu kuwaas oo si toos ah warbaahinta markaasi ula hadlay isla markaana sheegay ragga la dilay awal horeba aysan raali ka ahayn waxa ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay qaybtoodna telefoonno lagu hagay oo lagu shirqoolay qaarkoodna si toos ah loo beegsaday iyaga oo goobahooda ku sugan waxaa la tilmaamay in ragga xukunsanayaasha ah qaybtood ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay gudaha deegaanka Yaqbirweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose dhawaan qarax ka dhacay gudaha magaaladaas waxaa ku dhaawacmay ninka la yiraahdo duqow kaas oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay waaran u jartay kaasi oo ah in goobta uu ku sugan yahay lagu toogto ama gacanta lagu soo dhigo taas oo ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada gobolku si gaar ah degmada Walaweyn ay ku tilmaameen inay ka howlgalayaan saacadihii la soo dhaafay waxa uu ka soo muuqday baraha gaarka ah ee bulshada si gaar ah barta TikTok oo si weyn u isticmaalo isaga oo meel duur ah taagan ayuu si toos ah u sheegay in qarax ka dhacay deegaano hoostaga gobolka gaar ahaanna Yaqbirweyne uu ku dhaawacmay dhinaca qoortana ay ka muuqato dhaawac markaasi firir kooban ama firir yar uu u geystay iyo sidoo kale qaybta kore ee dhinaca bishinta sare waxaase uu tilmaamay in qofba uu waqtigiisa ku dhimanayo ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan saraakiisha xooga dalka Soomaaliyeed ee baadigoobaysa ayuu ku tilmaamay inay ka kooban yihiin dhowr sarkaal oo ay ugu horeeyaan Axmed Gaashaan Cabdulle Isxaaq iyo sidoo kale Halac oo uu tilmaamay inay hogaaminayaan ciidamadan taasi bedelkeed waxa uu tilmaamay in goobta uu ku sugan yahay aysan cidna uga imaan karin iskana difaacayo qof kasta waxa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntayna ay yihiin wax baadil ah oo aanan sharciga waafaqsaneyn waa sida uu sheegay muuqaal baraha bulshada ku baahay saacadii la soo dhaafay ayuuna arintaas iyo arrimo kale oo dhowr ah uu kaga hadlay aynu u soo laabano xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayuu si cad ugu sheegay in ciidamada deegaanka ee ku sugan Yaqbirweyne isaga uu xukumo cid kasta oo cabasho ka ah ciidamadaas ha noqoto wax looga caabanayo isbaaro ama ha noqoto wax looga caabanayo inay dhibaato u geystaan dad shacab ah isaga uu mas'uul ka yahay waxa uu tilmaamay xildhibaanku haddii beesha uu ka soo jeedo duqow iyo ragga kale iyo isagaba ay xukunsanayaal u yihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya isaga laga bilaabo laguna weeraro gurigiisa halkaasna nafta lagu dhaafiyo mar uu si hadlayay ayuu sidoo kale soo hadal qaaday ragga ay maxkamaddu ciidamada qalabka sida ku xukuntay dilka toogashada inaysan guud ahaanba ku sugnayn deegaanka Yaqbirweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ragga isku difaacaya deegaankana ay yihiin ciidamo hubeysan oo halkaasi ka saaray kooxdii shabaabku ahayd waxa uu tilmaamay in argada xilligan ka dhisan Yaqbirweyne sanado ka hor uu surnaa calanka madow ee uu ku qoran yahay xarafka la ilaaha illa allah oo uu ula jeedo micnaha kooxda al-shabaab in laga saaray oo guud ahaanba deegaankaas uu ka qabsaday ciidamadaasna ay yihiin ciidamo
deegaankooda xoreysanaya difaacaya sidoo kalena dadkooda u heelan sidoo kalena ka hortegaya fal kasta oo lid ku ah ammaanka deegaanka Yaqbirweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose xildhibaan Daahir Amiin Jeesow waxa uu soo hadal qaaday in arinta ka taagan Yaqbirweyne iyo duleedka Walaweyn iyo guud ahaanba deegaanada gobolku ay tahay mid lagu doonayo in lagu beegsado beesha uu isagu ka soo jeedo ee Galjecel waxaase uu tilmaamay inay ka baantoobaan cid kasta oo waliba ku lug yeelata arinta la xiriirta dagaalka u dhaxeeya dadka deegaanka ee Yaqbirweyne iyo ciidan military ah oo uu tilmaamay in rag saraakiil ah oo hab qabyaaladeysan garaado loogu siiyay inay dilaan dadka shacabka ah markaasi ay iska soo horjeedaan sidoo kalena dagaalkooda uu soo cusboonaaday ku dhawaad ilaa iyo 5 qof ayaa la dilay tan iyo markii howlgalladu ay bilowdeen ee waliba maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunkaasi waaranka ah ay soo saartay kuwaas oo isugu jira rag xukunsanayaal ah rag la baadigoobayay oo gacanta lagu soo dhigay la doonay kadibna sharciga la horgeeyo qaybtoodna la tilmaamay in qadad telefoon lagu shirqoolay oo ugu dambeyn nafta lagu dhaafiyay waxa la tilmaamay meel aan sidaas uga fogeyn Walaweyn in lagu dilay 3 ruux oo dhalinyaro ah oo horey loo sheegay inay maxkamaddu xukuntay kuwaas oo iyagana ciidamada qalabka sida la tilmaamay inay gacan ka geysteen dilkooda si gaar ah taliyaha ciidamada daraawiishta gaar ahaan kan saldhigga degmada Walaweyn ee gobolka Cabdulle Isxaaq waxaase la tilmaamay in arrimahaasi oo idil markii ay dhaceen kadib odayaashii dhaqanka ee degmada iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga ayaa si wada jir ah waxa ay ula hadleen warbaahinta iyaga oo ku tilmaamay arintaas mid nasiib darro ah ragga dilka loo geystayna ay aad uga xun yihiin in dhacdo noocani oo kale ah ay ka dhacdo deegaanada gobolka si gaar ah kuwa hoostaga degmada Walaweyn waxay aad dusha kaga tuureen saraakiisha militariga ee horkacaya ciidamadaas halkaasna ku haya iyaga oo tilmaamay in halkii looga baahnaa ragga ay maxkamaddu ciidamada qalabka sida soo xukuntay inay u bedeleen dagaalku inay laayaan dadka maatada xildhibaan Daahir Amiin Jeesow waxa uu tilmaamay oo uusan marnaba sheegay inuu yeeli doonin in inta la tago Yaqbirweyne dad maata ah la soo xasuuqo kadibna dib leesaga soo laabto oo waliba la sheego inay dileen rag xukunsanayaal ah xildhibaanku waxa uu tilmaamay dhammaanba raggii horey loo xukumay inaysan cidna ka dilin ciidamada maalin walba sheeganaya inay dileen rag xukunsanayaal ah oo ay baadigoobayeen waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arinta la xiriirta Yaqbirweyne iyo Walaweyn in arin soo jireen ay ahayd loona baahan yahay xilligan in waan wax lagu xalliyo laakiin aan colaada iyo sidoo kale dadka deegaanka aanan horey loo kicin qaraxyo halkaasi la dhagayna uu tilmaamay in dad deegaan ah ay ku geeriyoodeen oo qaarkood ay caruur ku jiraan sidoo kalena ragga ciidamada qalabka sida ay dileen la sheegay qaarkood inay yihiin rag u soo halgamay xoreynta deegaanka Yaqbirweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose qaarkoodna ayba markaasi ahaayeen dad lixdooda lixaad aanan dhameystirneen oo ku waxyeeloobay dagaaladii shabaabku ay dadka deegaanka la galeen sanada ka hor xildhibaanku waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arinta la xiriirta dagaalka ciidamada deegaanka ee Sheekh Xasan Barsane uu ugu magac daray isaga oo warbaahinta la sii hadlayay iyo sidoo kale ciidamada militariga ah ee Soomaaliya inuu noqonayo dagaal si daba dheeraanaya haddii arintan aysan ka waantoobin saraakiisha militariga Soomaaliya loogu xil saaray inay raggaasi soo dilaan ama xitaa soo qabtaan si walba oo ay ku keenaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ugu keenaan sidaas oo kale Yaqbirweyne iyo tuulooyinka hoostaga dhibaatooyin ayaa ka dhacay 14 qof dad kor u dhaafay ayaa hal goob lagu wada laayay hal waqti qaarkood 7 ruux ayaa hal goob lagu dilay weeraro ayaa dhacay qof nool oo inta la qabtay kadibna xarig lagu xirxiray dab lagu shiday ayaa dhacday dhibaatooyinkaasi oo dhan waxay noqdeen uur ku taalo saameyn ku reebay dadka deegaanka ilaa iyo hadda dagaaladii ka dhashay ayaa sii socda mana jirto waan rasmi ah iyo xal rasmi ah oo laga gaaray arinta xukunsanayaashan ilaa iyo hadda la baadigoobayo wixii ku soo korona saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogaha seela haddii aad ilaa dhamaadkana la soo gaarteen waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto saaxiibadada la sii wadaagto muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro sidoo kalena aragtidiina nagula wadaagtaan qaybta hoose ee faallada